mar kale kumanaan ayaa shalay isugu soo baxay fagaaraha Umawiyiinta ee magaalada Dimashq kuwa oo u dabaaldegay sanad guurada koowaad ee kasoo wareegtay xukunka cararka Bashaar al-Assadkii muddada 24 sano ah dalkaas xukumayay maamulkiisina lagu eedeeyo inuu malaayiin Suuriyaan ah qayb ahaan dilay qaar kalena barakiciyay aad ayaanu u faraxsanahay waxaanu sareeyaha uga mahadnaqaynaa isbedelka dhacay iyo wajigan cusub marka laga yimaado rayidka Suuriyaanka ah isu soo baxan sanad jirka ah camiray ee muujiyay dareenkooda la xiriira isbedelka siyaasiga ah ee dalka ka dhacay waxa indhaha warbaahinta dhab u soo jiitay in kumanaan horimood oo ka tirsan ciidamada militariga wadanku ka qayb galeen dabaaldegan kuwa oo wata gaadiidkoodii dagaal waxay tan warbaahintu ku sifaysay ciidamadii loo adeegsan jiray beegsiga shacabkoodu inay la dabaaldegayaan isla rayidkii ay hubka u siteen waayihii asadyada halka gaadiidkii dagaal oo ay helicopteriskani ka mid yihiin hawada camireen iyagoo aan markan shacabkooda duqeynayn ee dabaaldegooda kula dareen salaadu ku tujiyay masjidka Umawiyiinta ayuu ka qaybgalkiisa sanad guurada ku ibo furay Ahmed al-Shara madaxweynaha isagu sababta u ah dhamaadka waayihii asadyada تغيرت حكايات الناس عن سوريا واهلها من الاشفاق الى الاعجاب والاعتزاز سوريا waxay ka timid marxalad daciifnimo iyo hooseyn ah haatanna waxaan joognaa mustawa kale oo qabkeenii saaxadda ku soo noqday waxaasoo dhamina waxay dhaceen hal sano oo kaliya alle ayaa ku mahadsan midaas maamulka al-Shara waxa uu wajahayaa marxalado ay ugu horeyso kala qaybsanaanta bulsho ee wadankan xasaradaha Israa'iil ka wado gudaha dalkaas iyo soo celinta kaalmada iyo xiriirka caalamka ee Suuriya kaas oo loo arko jidaanka gooshidiisu fududayn xukunka al-Sharacna uu ah tijaabo adag oo hortaal